Muuqaalkani waa muuqaalkii ugu horreeyay aan ka sameynayo market terminology. Haddii aan arko marka insha Allahu tacaala in aad muuqaalka ka hesheen oo aad like aad saartaan oo like aad qarxisaan, yacni waxaa ii caddaanaysa inaad aad ka hesheen muuqaalkan. Kadibna waxaa sameyn doonaa qeybo kale oo hadda qeybtan waa qeybta koowaad, qeybo labaad saddexaad ayaa sameyn doonaa. kulli insha Allahu tacaala waxaa idin bari doonaa market terminology-ga bilow ilaa dhammaad insha Allah, inta ugu muhiimsan, si markaa wax analyse gareynaysid ee kugu sahlanaato insha Allahu tacaala. Marka adiga waxaa laga rabaa oo kaliya ah haddii muuqaalkanba uu kusoo gaaro like saar si aan u ogaado inaad ka hesho muuqaalkan. Haddii aan ogaado inaad ka hesho muuqaalkan, anigana waxaan ka sameyn doonaa muuqaalo fara badan. Sidoo kale haddii aad tahay channelkan markii kugu horreysay aad soo booqato oo kugu cusub yahay, waxaa hubaal ah inaad wax badan aad ka faa'iidi doonto. Fadlan subscribe saar insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقيارتا شرفت له ميل والبا الدنيا كجوكتان وإن سلامي مالو ونكسن هدي هبين إذن تغي هبين ونكسن أيا إذن الله يهي انتا سكبعدي ما انتوح أقادنا ماركت ترمينولوجي أو يعني علمية دي كسابسن سوقا. haddii ay noqoto suuqa forex, haddii ay noqoto stock market-ka, erayadan inaad baratid very important ayay u yihiin. Inaad fahamtid trading-ka iyo waxa uu ku saabsan yahay guud ahaanba. Marka waxaa idin sameeyey ilaa iyo maanta waxaa qaadanaynaa 8 eray cilmiyadeed iyo waxa laga wado mid walba. 8dan eray waxaa isleeyahay waa 8 eray ee ugu muhiimsan inta aad ku jirtid financial market, suuqyada maaliyadeed ee caalamka. Haddii ay ahayd forex trading, haddii ahaa lahayd cryptocurrency, haddii ahaa lahayd stock market, kulli waxaana way ka hor imaanaya. Sababta inaad baratid ay muhiim tahay waxaa waaye meel walba ayaa ku arkaysaa. Tusaale ahaan markaa akhrinaysid newsyada ama economic, markaa dhaqaalaha wax ka akhrinaysid, erayada inta badan way soo laalaabtaan oo meel walba ku arki doontaa. marka haddii aan ku hormarno ereyga koowaad wuxuu noqonayaa insha Allahu tacaala volatility. Volatility waxaa waaye wax aan qiimahooda aan fadhin oo isbedelaya ama wax dhaqaaq badan. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah dhulalkoo kale, qiimahooda ma fadhiyaan. Dhulalka qiimahooda badanaa ma fadhiyaan oo way isbedelaan. Marka waxaa la dhahaa volatility. Sidoo kale lacagtana qiimaheedu ma fadhiyo oo yacni shal meesha ku ogeed maanta meel ka duwan ayay taagan tahay, oo sida aragtaan lacagaha mirirkii ama secondkiiba bibis ayay isbedelaan. Yacni taas waxaa waaye volatility, dhaqaaq ayaa la dhahaa ama isbedel ama qiimo aan fadhin. ereyga labaad waxaa waaye aan baranayno insha Allahu tacaala liquidity. Liquidity haddii loo fiirsho dhanka dhaqaalaha waxay noqonaysaa sahlanaan ayay noqonaysaa. Sida u sahlan tahay in wax la access gareeyo ama in wax la adeegsado. Tusaale ahaan haddii account-kaaga caadiga ah ama saving account-kaaga ee lacag kugu jirto, waxaa la dhihi karaa high liquid. Sababtoo ah aad u fududahay inaad lacagtii aad kala soo baxdo oo aad wax ku iibsato. High liquid means easy to access, aad u fududahay in la access gareeyo. Marka liquidity markii laga hadlayo forex trading ama stock market, waxaa waaye sida ay wax u fuduyihiin in la trade gareeyo ama in laga shaqaysto. Marka la dhaho high liquid markii la joogo forex, waxaa waaye aad u sareysaa, aad u fududahay in laga shaqaysto. dhulalka oo kale hadda waxaa waaye waxaa la dhihi karaa low liquid. Sababtoo ah
kaba soo qaad maanta waxaa rabtaa inaad dhul iska gadid. yacni dhul inaad iska gadid ma ahan wax sahlan, sidaas darteed waxay noqonaysaa low liquid oo yacni waxaa u baahanaysaa maaragta inaad qabsatid dulaal inaad qabsatid, in maaragta warqadihii dukumentiyadii la kala wareejiyo, waxyaabo badan canshuurtii, arrimo badan waqti dheer ay qaadanaysaa in dhulkaas isku markiiba la iibiyo ama la gado oo lacagtiisa ay heshid. laakiin saving account markay noqoto lacag bangi ku taalo kale waxaa la dhihi karaa high liquid, sababtoo ah inaad bangigaas lacagta kala soo baxdid aada u sahlantaa oo waqti badan kuguma qaadanayso, isku markiiba waa dalba kartaa oo lacagta waa lasoo bixi kartaa. sidaa darteed waxaa la rabaa inaad fahamtid high liquid iyo low liquid, high liquidity iyo low liquidity. marka sidaas waaye inaad fahamteen ayaa rajeynaa. liquidity provider waxaa waaye cidda bixisa market accesska, yacni cidda kuu suurto gelinaysa inaad suuqa aad ka shaqaysato. bal adiga haddii hal su-aal ku weydiiyo, yaa kuu suurto geliyey inaad forex trading aad ka shaqaysato ama aad trade garayso? jawaabta ugu horeysa waxay noqonaysaa brokerka ee awood inoo siinaya inaan suuqi access garayno. marka liquidity providerka waxaa la dhahaa cidda bixisa maaragtay ama accesska kuu siida suuqa, cidda kuu suurto gelinaysa ama awoodda kuu siinaysa inaad suuqa aad ka shaqayso ama aad trade garayso. waxay noqon karaan brokerska, waxay noqon karaan bankiska, waxay noqon karaan financial institutions, hay-adaha dowliga ee maaliyadeed ayay noqon karaan. intaasaa marka waxaa la dhahaa liquidity provider. sidoo kale ereygan liquidity provider waxaa la dhihi karaa market maker ayaa la dhihi karaa. bondiska haddii aan sharaxaad ka baxsho waxa waa warqado damin ah oo ay dowladdu ama maamulku u daabaco cidda ama hesa lacagta. basically waxa waaye bondiska maaragtay aniga adigoo kale oo ah dad tujaar ilaahay maal siiyey ayaa magaaladii ku nool. marka dowladdu waxay rabtaa inay mashruuc ay fuliso ama maaragta waxay rabtaa inay jid ay dhisto. si marka dowladda jid ka soo qaad dowladda qarashka ee jidkaas ku dhisi lahayd ma hayso ama wadadaas ay ku dhisi lahayd, marka waxay sameynaysaa aniga adigoo kale oo maalqabeen ah oo ilaahay hanti siiyey ayay u imaanaysaa. dabeetana dowladda waxay u daawacaysaa wax la dhahayo bondis. bondiskaasi waxa waaye waa maaragtay warqado damiin ah ee caddeynayso inaad dowladda lacagtaas amaahinay, welibana mustaqbalka ku helayno lacag dulsaar oo faa'iido ah inay maaragtay noo soo celin doonto dowladda ama maamulka markaasi. taas ayaa waxaa la dhahaa bondis ayaa la dhahaa. waxa kale oo qaadanaynaa oo noo soo haray walaalayaal waxa la dhahayo dividend ereygan maaragtay wuu ka hor imaan doonaa dabcan meelo badan waa ku maqasha umaleeha sida youtube-ka markii la analyse gareynayo lacagaha ama maaragtay stock market-ka badanaa waa maqli doontaa ereygan. dividend waxaa waa saami qeyb waaye maaragtay in maaragtay la wada qeybsado ama qeyb maaragtay lagu siiyo qoondada ku lahayd share company ku leedahay ayaa la dhahaa dividend. waxaa kaloo kuu soo haray index stock. index stock walaalayaal wax kale ma ahan, waxa waaye waa tusmo lagu caburo heerka waxqabad ee saamiyo shirkado la isugu geeyay hal group. yacni index stock haddaa maqashid waxaa waaye waa kambaniyo hal group laga dhigay kadibna performancegooda ama maaragtay heerka macnaha qiimaha maaragtay sare u kacooda ama hoos u dhacooda lagu cabiro. waxaa tusaale maaragta wada garanaysaan oo noqon kara S&P 500 waa index stock, sababtoo ah waxay maaragta ka turjumaysaa 500 oo company ee maaragtay Mareykanka. Nasdaq sidoo kale iyo Dow Jones intaas ayaa ka mid ah. yacni index stock ereygaas hadaa maqashid waxaa waaye waa maaragtay company hal group laga dhigay kadibna performancegooda lagu cabiraa. ma fahantay? tusaale ahaan intaad dhihi lahayd hal company oo Facebook oo kale ah stock pricekeeda index stock waxay ugu duwan yihiin, yacni waa company hal group laga dhigay oo la sugaya tusaale ahaan Facebook, Apple,
Tesla, yacni Toyota, shirkadahaasoo dhan oo yacni hal group laga dhigo tusaale ahaan oo maaragtay performance-gooda ama maaragtay stock market-ka qiimaha ay ka joogaan ayaa lagu cabiraa. Marka index stock ereygaasi sidaas ayaa laga wadaa insha Allahu tacaala. Waxa inoo soo haray waxa waaye waxaa kaloo ereygan badanaa waa arki doontaan insha Allahu tacaala. Waxaa ka mid ah securities. Securities wax kale ma ahan, waa suuqyo laga shaqaysan karo sida stock market-ka ka mid ah, bonds-ka ka mid ah, foreign exchange-ka ka mid ah, options-ka ka mid ah oo ah yacni inaa maaragtay options-ka waxaa waaye waxaa ka mid ah binary option-ka oo kale oo ah yacni qofku inuu maaragtay laba option oo haysto. Hore ugu soo hadalna video ka hore soo daabo. Qofka laba option oo haysta haa iyo maya oo yacni wuxuu ku khamaarayaa qofka maaragtay options. Ereyga ugu dambeeya qaadanayna waxaa waaye mutual fund. Mutual fund waxaa waaye waa sanduuq maaliyadeed oo uu maamulo xirfadle maalgashi isagoo ku shaqeynaya lacag maalgashi oo dadyo kala duwan laga soo ururiyo. Yacni mutual fund haddaa maqashid waa account manager oo kale. Waxa waaye qof suuqan aqoon u leh kadibna dadyo kala duwan oo saaxiibo ah inta maaragtay ka soo ururiyo lacaga maalgashi ah, lacagtii ugu shaqeynaya oo suuqii faa'iido ugu soo saaraya. Suuqaasi wuxuu noqon karaa forex trading, wuxuu noqon karaa cryptocurrency, wuxuu noqon karaa stock market, yacni suuq kasta ayuu noqon karaa. Marka mutual fund marka anaga mutual fund-ga Soomaalida haddaan nahnay si qaldan ayaa u isticmaalnaa oo qaladaad aad u fara badan ayaa maaragtay ka jiro, especially markaa noqoto forex trading oo sida ka warhaysaan wax isdabamarintii 2020 ee dad shirkadihii soo badanay ee maalgashiga inta dadka lacag ka aruursaday badankooda aan sheegaa qaar maaragtay waxaa laga yaabaa inay maaragtay ay wado sharci ay mareen, laakiin waxaa ka hadlayaa qaabkii sida khaldan u isticmaalay inta dadka lacag ka aruurshay dhahay waan idinku shaqeynaya kadibna lacagii la goostay ama si xun u maamulay ama khasaariyay. Marka mutual fund-ga waa sidaas. Mutual fund sidoo kale waxaa noqon kara account manager oo markaa forex trading joogtid account manager wuxuu noqon karaa mutual fund ay noqon karaa. Marka account managers-ka maaragtay forex trading-kana waxaa ka mid tahay waxyaabaha ugu maaragtay xun oo qofka maaragtay oo ku dhici karo ay ka mid tahay sababtoo ah qofkani oo hantidaada markuu ku shaqeynayo mas-uuliyad iskama saarayo oo wuxuu ugu shaqeynayaa si bilaa maaragtay mas-uuliyad sababtoo asiga xanuun kuma hayso malaha lacagtan si adag kuma soo shaqeyn. Sidaa darteed wuxuu sameynayaa in uu lacagtaasi uusan ka taxadirin, inuusan ula dhaqmin lacagtaasi lacag oo leeyahay oo kale, in maaragtay lacagtaasi sidoo rabo ugu dhaqmo, taasoo keenaysa in degdeg lacagtii lagu lumo sababtoo wuxuu rabaa haddii faa'iido fiican mar maaragtay uu helo oo suuq ay dhacdo si nasiib ah weliba si khibrad ay ku dhahantaa ma ahan si nasiib haddii suuqa maaragtay faa'iido fiican uu soo geliyo inuu kula qabsado ayuu rabaa. Haddii maaragtay meenis weyn oo galan ama khasaaro weyn oo galan wuxuu rabaa inuu mas-uuliyaddaas keliga maaragtay kuu gaar yeelo oo uu faraha kaaga qaado ama kaaga dhex baxo. Marka mutual fund-ga waa sidaas. Qof maaragtay xirfadla oo suuqan aqoon u leh oo maaragtay weliba la hubo oo maaragtay la tixraaci karo haddii uu yahay mutual fund-ga aad ay u wanaagsan yahay. Laakiin sida anaga u isticmaalno aad ay u gedisantahay sida dadyagu kale u isticmaalaan. Way jiraan dad si wanaagsan maaragtay shaqadan u qabta balse boqolkiiba waa 5 wax maaragtay ku siman. Marka halkan ayaa kusoo gabagabeynaya insha Allahu tacaala. Fadlan muuqaalkan haddaa ka heshay fursad u heshay inaa halkan aad soo gaarto like saar insha Allahu tacaala. Part 2 muuqaalka labaad ayaa uga soo hadli doona. Sidoo kale commentiga igu soo qora fadlan please commentiga waxaa igu soo qortaan ustaad muuqaal kale ka soo sameeyay. Marka dalabkiina haddii aan arko inuu badan yahay
waxaa maalinta kale soo gudbin doonaa 8 eray oo kale oo cusub insha Allah. Aad u mahadsantiin.